in bakaylayaasha aradan baraka loo yeelo waa xusuus baaba'diya indhaha boorhakaarida taariikhda bidix loo qoraa waa bedelantahay maxaa qaranka bilicduu lahaa bahla loo siiyey waxaa yaab iyo murugo ama kaag iyo fajac ah isla markaana ku argagax gelinaya marka aad aragto aqoon-yahano Soomaaliyeed oo lagu sheegayo professoro lagu casumay inay dareenkooda ka gudbiyaan waayaha dadka iyo dalkeena Soomaaliyeed inay la yimaadaan gaboodfal iyo ka hor imanayaan amaamiirta rabbaaniga ah ee samawiga ah iyo ku dhaqanka sharciyada islaamka waxay u noqotay wax argagax iyo yaab leh markii aan maqlay dareenkii foosha xumaa ee ka soo yeeray labada professor ee u muuqday kuwa aan lahayn aqoon diineed iyo mid faham ay ku fahmaan caqiidada dhabta ah ee dadka muslimiinta ah ay leeyihiin Soomaaliya waa dad Soomaaliyeed oo boqolkiiba boqol muslimiin ah oo aaminsan Allah iyo diintiisa inay tahay aasaaska nolosha bini'aadamka ku dhaqanka sharciyada islaamku waxa ay aas u tahay habnololeedka bulshadeena waxa ay aas u tahay ku dhaqanka bulshooyinka caalamka oo dhan sidaa daraadeed inay ka hor yimaadaan shakhsiyaad oo ay yiraahdaan waxaanu niri no ku dhaqanka sharciyada islaamka waxa ay la mid tahay ka hor imaansho ay ka hor imanayaan diinta islaamka sidaa daraadeed waxaan ugu baaqayaa xubnaha hor socodka ee golaheena qaybaha bulshada in la xakameeyo dhaqdhaqaaqa iyo facilitate gareyntii hore oo inuu facilitate gareyn jirnay shakhsiyaadka iyo kuwa la midka ah inagu waxaan nabi doonaa inaynu ku casino fagaarayaasha bulshada isla markaana ka joojin doona inay qayb ka noqdaan dhaqdhaqaaqeena bulsho ilaa ay ka noqonayaan ama ay ka toobad keenayaan gaboodka ay la yimaadeen iyo baadinimada ay cadeysteen baadinimada waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu fitnadooda haddii ay ka noqon waayaan baadinimada ay ku dhawaaqeen inuu ilaahay fitnadooda ummadda Soomaaliyeed ka qabto inana aynu ka feejignaano fitnooyinkooda iyo dhibaatayntooda waxaan jeclahay inaan u baaqo dhammaan qaybaha bulshada hoggaanada inay isku dayaan in haddii nimankaas aanay ka tanaasulin dhawaqa foosha xun ee kasoo yeeray in la xakameeyo isla markaana lagu soo rogo cunaqabatayn guud waxaan ugu baaqayaa haddii aanay ka noqonin arrinta qoysaskooda caruurtooda inay ka fogaadaan baadinimada ay la yimaadeen nimanka baadinimada ku dhawaaqay waxaan kaga tagayaa amaanada Ilaahay ismaqal dambe iyo kulanti wacan oo wanaagsan. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.